Please subscribe and bell on notification. idinku soo dhawaa garan kartaan ma fahantiin ani laakiin wax walba hadday dhacaan go-aankayga idiin sii sheega caawna qorta taariikhda waxay tahay screenshotna ka qaata haddii kumanaan milyan xitaa la siiyo stage dambe ee ayaga leeyihiin ama meel dambe ee ayaga leeyihiin ma tagayo aniga qadar ahaane xumaan ay ugu sameeyeen kaliya maahane waxay xumaan ku sameeyeen intii yacni soo garab qabata ayaga oo wax ka dhigtay inta ayaga soo garab qabatay oo wax ka dhigtay waxaa ka kooway qaaliladan waxaa ku xiga fanaankii sanadka heesta best of the year qaatay gental waxaa ku xiga yacni ilaahay kuma daranaadee kaamiramanooyin kale yacni waad ogaan kartaan sababta sida loo sameynayo sanad walba waxay rabaan yacni soomaalida in lacag laga sameeyo yacni dadka la isku dhex gato programka dhan lagu sheegayayna asaga iyo waxa dhan haddii la isku xisaabiyo $5,000 wax ka yaraa ku baxaya ma dham xitaa aniga qadaraa sameyn karaa ku dhah aabe ibrahim aan u baahnay hooyaday faaduma cabdi jimcaal aan u baahnayn shakhsiyan aan sameyn karaa anoo qofna ogadin wallahi billahi oo tallahi saddex magac ilaahay waayo laakiin masaakiinta loo soo dhigtay lacagtooda ama masaakiinta yacni qarashka laga cunayo ama masaakiinta yacni la lugoonayo sidaas haddii la rabo in lagu hortago soomaali ama magac loogu sameeyo ma soconayso soomaali magac haddaa ugu sameynaysid qayaano ma soconayso anu waxaa ka gubta hadda meesha aan u fadhiyay idinkala hadlay ma ahan awaad layga guulaystay iyo awaad ani layga qaaday wallahi inaan intaba ka hadleen waqtigiisa ilaahay ma gaarsiisamo wallahi inaan intaas ka hadleen oo haddaan rabo ama aan kala jeclahay idinku si fiican aad ani ii garanaysaan ma garatay yacni orod kale aan samey lahay waa arkaysin laakiin kenya waxaan u joogaa shaqo waana joogaa shaqadeedana miro dhalkeeda youtube-ka noo balan oo ka arkaysin y3a production aa ka arkaysin qarashka igu baxay wax walba igu baxayn oo qofna ani ma iga qaabilo qofna yacni wax igala dhexeeya ma jiraan hebel awaadne yacni sanadka hore maadaama aa qaaday kan labaad haddaan hadda qaado yacni adi niyadaada waxay ku siin lahayd waxaan wax asaga mar walba loogu talagalay waayo oo la siinayo anigana intaa adiga isdhiin ka horba anaa go-aan qaatay una sheegay haddaa been ka sheegayana meel walbay soo fariisan karaan qadar ma joogaysaa sanadkan manoo performance garanan maya walaalayaal ani wax aa igu tashanaysaan sanadkan oo ilaahay uuntay ma jiro fanaaniin kalaa jiraan siiya okay gurigayga inuu iska joogaa marka la ii keenay awaadi iyo invitation war wax walba haddaa aniga ii sameynaysid xitaa aniga waxaa masti in yar qadarin inaa aniga isiisid ade before 4 days 5 days inaa aniga isii sheegto wixii plan aan leeyahay inaan yacni blainkayga gooyo inaan yacni muxuu ayati adiga xaggaaga raaca ama inaan xaggaaga diido xaggayga raaco ani waan iska labista xalay waxaan lahay brogaraamo kale tartiibkayga waa baxay wixiygaan soo dhamaystay waa maqlay laakiin waxaa aada ugu xumaaday fanaanada sanadka waan qaaliladan naqanin iyo gabar meeshaas lacag badan lagaga cunay oo aniga guddiga haddaan ka mid ah xitaa ogaay hadalladan isoo gaaraya yacni in gabadha sanadkan ay rabtay inay yacni hiidgarayso si ay magac u yeelato sanadkaana wax walba ay ugu bixinaysa masaakiinta way isdiyaarisay way libisatay yacni meesha markay tagtay xitaa ma ahan ya maalmo dheer meel kala bedelin waa isla stagekii intii la joogo xafladda la joogo le dhagdhag la kala siiyey magaceedii iyo waxaa la isdulmariyay magaca qof kale la siin lahay hadday naxtin u dhimi karta gabadhaas xala walaashin way u dhiman lahayd aad baan aniga ugu murugooda ma garanaysaa aad iyo aad baan ugu murugooda Somali Glamour Award
tan maahan canaanan idinku canaananayo waxay tahay yani inaad sii jirtaan haddaa rataan, inaad sharaf yeelataan haddaa rataan, inaad magac samaysaan haddaa rataan, Soomaali xaggeeda inaad wax ku ahaataan haddaa rabtaan. waxaa aad u fiican ama qurux badan inaad yani mar waliba xaqa miisaantaan, inaad mar waliba miisaantaan. ma garatay? intii kaloo yani xumaan tabanaysa ama calooshooda wax ku jirtana ayagaa soo hadlayo oo qof walba miidinka aamusnaanayo. ana xumaan caloosheedin iguma jirto, ruux saafiya idin ahay. waxaa idinka rabo oo idinka waayna hadda isleeyahay ma jirta qadar ahaan. dadkana waxaan shacabka idin tusaa waxaad inaad idinku magac samaysaan, horumar gaartaan.